السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديالك في دوادا شنالكا maanta waxaa ku arkaynaa inta arrin oo cajaa'ib ah Soomaaliya kama dhamaatay. ninkii xasan sheekh ahaa baa isbuucan wuxuu tegay meel oo shir lagu lahaa oo shir ka dhacaysa xamar, marka halkaas uu ka hadlayay. marka badanaa wuxuu dhahayay hadal nacnac bay ahayd, laakiin markii ay wixii dhammaan rabeen uu dadkii u faanay oo dhahaya 12 caruur inuu leeyahay oo kulligood ay jaamacad ka baxeen. marka halkaas waxa weeye wuxuu tusinaysaa inuu caruurtiisa u dadaalay. marka dhegeysta balaa kana saafkiis ka dhahaya dhegeysta. ilmahayga familiga reer xasan sheekh in badan oo kamid ah waa weynaadeen waxbarasho jaamacadeed ka baxeen. 12 jaamacad ka baxday, 2 science ka baratay, 2 dhaqaatiir ah oo by profession dhaqaatiir noqdeen. inta kale dabcan xisaabiyaal iyo finance dad bartay iyo IT iyo way ku jiraan, laakiin haddana qaarkood psychology bartay, qaarkood law bartay, qaarkood hadda history inay bartaan u socdo, qaarkood maxaan ku raadnaa public relation bartay, qaarkood way socdaan. anigana waa ku dhiirigeliyaa maadooyinkaas runtii socialka ah inay bartaan. waxaan marka halkaan kusoo rabaa inaan kusoo gabagabeeyo waalidiinta Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan ha lagu dhiirigeliya ilmaha in ay bartaan maadooyinka mujtamaca u adeegaya. laakiinse ninkan shaqadu hayo ma fahmayo. shaqadu hayo mas-uuliyadda waxaa ka mid ah inuu mas-uul ka yahay caruuraha waddanka o dhan waxbarashadood, inuu mas-uul ka yahay oo kuwiisa keliya uusan ku ekaan. taas waxa weye arrintaas muu fahmin oo mas-uuliyadda suu gabay. haddana waxaa kaloo cajaaba oo sii dheer arrintaas waxa weeye iskoolo oo ku yaala xamarka uu gatay balaayoga imaanka ilaaha ka qaadeen. iskoolada uu gatay caruurtii waxa weeye mustaqbal la-aan buu ku riday. caruurtii waxa weye mustaqbalkooda ugu ciyaaray. marka kuwiis keliya ka fakaraya. marka waxaan samayn karna ma jirto. ninkan lala xisaabtamahayd, dadkiina lala xisaabtamayaan. marka ilaaha naga qabto. وفيرسابل عروته أو مستقبل أنت كردي ده كلا عروته فيرس وجري. madaxweyne iskoolkeena inaan la gado marabno iskoolkeena waxbarasho fiican ayaa ku haysanaa. waxbarashadan oo kale ilays mar like Soomaali marda ma laga helay soo marka waxbarasho waxaan rabnaa iskoolkeena beec ma ahan oo yani madaxweynaha waxaan ka codsanayna iskoolkeena inuu noo badbaadiyo. anaga iskoolkeena waa jecelnahay, waxbarasho waa jecelnahay, yani future-kana dad fiican noqonaa rabnaa. waxaan ka codsanayna madaxweynaha iskoolkeena beec ma ahan, saalna ma ahan. dad oo business heartless businessmen ina iskoolkeen la iibinaa rabaa madaxweyne fadlan maqal. sidaa ogtihiin iyo sidaa hore ugu aragteen barnaamijkii hore, marxuumkii baa isbuucan afka furtay oo dadku uu madaxda u yahay waxay ku bilaabay oo ku dhahay Soomaali inaysan caqli lahayn. laakiinse asaga caqli lahayn. xaqiiqda waxa weeye xasan sheekh markuu caruurtiis keliya uu ka fikirayo oo dad kale caruurtooda mustaqbalkooda ugu ciyaarayo asagoo weliba madaxa, asagoo ay mas-uuliyadiis tahay inuu ka shaqeeyo caruuraha waddanka o dhan waxbarashadooda. markaas ninkaa ag taagan waxa weye baa doqona. marka ninkan dhagaala oo iska dheer waxa weye waxaas uma jeedo. marka ilaah naga qabto baa dhahaynaa. laakiinse horta wuxuu dhahayaaba amay wax ka jirtaaba. ingiriiska waxa ku mahmahaan saacadda khaldan xitaa marbay sax sheegtaa. marka Soomaali waxa weeye xisaab badan oo la rabay in la xisaabtamo, hadal badan in laga qayliyo la rabay, waxay ka aamusan qabyaalad darteed. oo dhageysta ninkan wuxuu dhaho markuu caqligu shaqeeyo ayay dadku xisaabtamaan. innagu haddaan Soomaali nahay qofku 2 jawaanib buu leeyahay. midna waa dhinaca emotionka, midna waa dhinaca caqliga. dhinaca emotionka inagu badan. dhinaca maadaama inagu badan yahay kaasaa aad u kacsan markasta innaga haddaan, waana midka keenaya qabiilka iyo qabyaaladda iyo maxaan ku dhahaa waxyaabaha aan wanaagsanayn dalka u wanaagsanayn. waa mid